Asalaamu calaykum asxaabta aan jecelnahay kusoo dhawaada qisadeena maanta. Qisada maantana waxay ku bilaaban doontaa sida tan. Janaaza ugu weyneyd taariikhda waxaa lagu tukaday nin dhilaysan jiray, qamrigana cabi jiray. Suldaan Suleymaan Alqanuuni ayaa habeenada ka mid ah isagoo oo kormeer ahaan u socda oo xiran dhar aan laga garan karin in uu yahay isaga ayuu la kulmay dhacdo ka yaabisay. Wuxuu ahaa meyd wadada dhex yaalla oo uusan qofna u soo dhawaanaynin. Markaasuu weydiiyey dadkii goobta ku sugnaa qofka uu yahay, kadibna waxaa looga sheekeeyey in uu ahaa nin dhilaysan jiray, qamrigana cabi jiray, wax caruur ahna aan ka tegin, ehel oo dhanna kaliya ka lahaa xaas, cid rabtayna inay duugtana aysan jirin. Suldaankii waa xanaaqay, wuxuu yiri miyuusan idinku jirin qof ka mid ah ummatu Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam. Kadibna meydkii ayuu soo qaaday wuxuuna u geeyey xaaskii uu ka dhintay marxuumku. Markay aragtay meydkiisii ayay barooratay, weliba oohin saa'id ah. Markaasuu suldaankii yaabay, balse ma aysan garanaynin qofka meydka keenay in uu yahay Suldaan Qanuuni. Suldaankii ayaa ku yiri maxaad la ooyeysaa, soo muusan ahayn ninkaagu mid dhilaysta oo weliba qamriga aad u cabi jiray? Waxay tiri wuxuu ahaa mid cibaado badan oo Allah ku xiran mar walba, inkastoo uusan ubad Ilaahay ina siinin, haddana wuxuu ahaa mid aad u jecel inuu Ilaahay awlaad siiyo. Sidaas awgeed wuxuu soo iibsan jiray qamri, kadibna suuliga ayuu ku daadin jiray, wuxuuna dhihi jiray alxamdulillaah, waxaan dhibka macaasida ka yareeyey dhalinyaradii Islaamka. Sidoo kale wuxuu tegi jiray goobaha dhilooyinka ee dumarka jirkooda ku ganacsada. Wuu la heshiin jiray gabar ka mid ah gabdhaha, markaas ayuu siin jiray maalintaas lacag ku filan. Wuxuu dhihi jiray xaafadda iska aad, kadibna wuxuu dhihi jiray alxamdulillaah, waxaan dhibka macaasida ka yareeyey dhalinyarada Islaamka. Anna waxaan ku dhihi jiray, waxaan u sheegi jiray in dadku kaliya ay arki doonaan qamriga aad soo gadanaysid iyo gabdhaha dhilooyinka aad galaysid, ma arki doonaan camalkaaga wanaagsan. Hadhowtina ma heli doontid meydkaaga wax dhaqa markii aad dhimatid. Kadibna wuxuu i dhihi jiray isagoo qoslaya, waxaa meydkayda dhaqi doonaa Suldaan Suleymaan, waxaana ku tukan doonaa wasiiradiisa, culimada iyo dhammaan muslimiinta oo dhan. Suldaan Suleymaan Alqanuuni markii intaas looga sheekeeyey ayuu oohin bilaabay, wuxuuna yiri wallaahi run buu sheegay, aniga ayaa dhaqaya meydkiisa oo weliba duugaya. Wuxuuna iskugu yeeray dhammaan culimadiisii, wasiiradiisii iyo dadkii oo dhan, wuxuuna ku amray in lagu tukado. Qisadan waxaan ka baran karnaa boqolaal cashar oo kala duwan, waxaana ugu weyn in aanan dadka ku xukumin sidii ay u yeelaan iyo ficilada ay sameynayaan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay kusoo biir kanaalada Naciim Studio iyo Darulkhayr Media, waana ku mahadsan tahay daawatada muuqaalkan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.